Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka magacaaban ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray dalka Uganda. Munaasabad lagu soo dhaweynay ayaa waxaa ka qayb galay siyaasiyiin, ganacsato, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Uganda. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka magacaaban ayaa bogaadiyay jaaliyadda Soomaaliya ee dalkaasi ku nool doorka muuqda ay ku leeyihiin horumarka iyo isdhexgalka bulshada Geeska Afrika. marwada madaxweynaha Dr. Amina xildhibaanada labada aqal ee golaha baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaanada dawladda walaalaha nahay saaxiibka nahay Uganda iyo Kenya iyo mas'uuliyiinta kale saaxiibaday aan isku dheernahay oo Axmed Yaasiin ayaan leh horkacayo ka yimid Somaliland waqtina wada qaadan doona hadii Ilaahay ilaa xafladda intaynu joogno iyo intaynu Uganda joognaba waxaan leeyahay dhamaantiin soo dhawaada oo mahadsantihiin waxaan uga mahad celinayaa Dr. Amina inay isu keentay oo ay xafladdan maanta isugu keentay berina aynu arki doono kana marxaati noqon doono sida horumar haweeney Afrikaana Soomaaliyeed nationality-yada kala duwan ee ay sheegtay gabadhii xiriirinaysa leh